waxaa maanta aan la yaabaa oo aad u qosol badan arday iminka ku jira dugsiga sare ama iminka jaamacadda dhiganaya oo ka sheekeynaya inaad kala fahmi karto marka adiga dhacdooyinka iyo wararka daawashadoodu ay wax kuu soo kordhinayaan iyo markaanad waxba ka faa'iideyn. talow maanta oo aad muuqaalkan daawanayso adduunyada maxaa aad looga hadal hayaa haddii ay noqoto arrimaha siyaasadda iyo arrimaha kale ee bulshooyinkaba. sidoo kale la socoshada dhacdooyinka kala duwan ee adduunyada ka socdaayay maxay dhibaato u keeni karaan shakhsiyadaada. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. muuqaalkani maanta wuxuu gaar u yahay ardayda iminka waxbarashada ku jirta. sidoo kale muuqaalkan waxa aynu maanta ka akhriyeynaa buugga aadka u faa'iidada badan ee ku qoran luqadda carabiga ee magaciisa la yidhaahdo almaajarayaat. inta ugu badan dhalinyarada maanta waxbarata waxa uu wakhtigu inta ugu badan kaga lumaa daawashada dhacdooyinka kala duwan ee adduunyada ka dhacaya, taasi oo marar badan qofka dantiisa seejisa, sidoo kalena laga yaabo xataa heer uu qofku gaadho inay u keento dhibaatooyin caafimaad. marka ardayahow, haddii muuqaalkan aad maanta daawanayso aadna wakhtigaaga aad ugu bixiso ama aad ku mashquulsan tahay arrimaha dunida maanta ka socda, kitaabkeenu maanta waxa uu ku leeyahay waxaa muhiima inaad kala saarto 4 qodob. qodobka koobaad, waxaa muhiima inaad kala fahanto la socoshada dhacdooyinka caalamka xilliga aad wax baranayso iyo xilliga aad wax ka qaban karto. tusaalaan ku siinayaa, iminka tusaale ahaan haddii aad tahay arday caafimaad oo aad timaado dhakhtarka, dabcan dhakhtarka waxaa ku jira bukaano aad u kala duwan, qaarkood baa laga yaabaa inay xanuuno aad iyo aad u xuni ahayaan. inaad markaa waxa kaaga faa'iido badan inta aad timaado oo aad la socoto oo aad qaarkood xataa laba murugooto, waxa kaaga faa'iido badan inaad iska joojiso akhbaartooda, kadibna aad waxbarashada u go'do. maalinka dambe ee dhowr sano kadib markaad waxbarashadaadii soo dhammaysato waxa aad diyaar u tahay markaa inaad akhbaartoodii aad la socon karto. sidaasoo kale weeyaan dhacdooyinka siyaasiga iyo dhacdooyinka kale adduunyada ka socda. maalinka waxaa muhiima inaad kala fahanto maalinka aad wax ka qaban karayso iyo maalinka aad ardayga tahay ee loo baahan yahay inaad waxbarashadaada ku mashquusho. qodobka labaad, marar badan in badan oo inaga naga midi marka aynu dhacdooyinka kala duwan la soconno waxaa laga yaabaa inay nafta kuugu sheekeynayso waxaan ula socotaa si aanad uga dhicin adduunyada waxa maanta ka socdo qof abdheyda aad u noqoto. laakiin waxaad ogaataa marka aad tahay arday aad cilmi aad baranayso in ay muhiim kuu tahay inaad in fara badan inta aad social mediaha iyo dhacdooyinka adduunyada la socoto loo baahan yahay inaad ku qaadato buugtaada iyo wax akhriskaaga, inaad in yar iska joojiso ama muddada aad waxbarashada wado la socoshada dhacdooyinka caalamka yuhuuddu ay haystaan. waxaa laga yaabaa subax walba marka aad soo kacdo inaad maanta imisaa dhimatay, imisaa dhaawaca, imise guri baa la burburiyey, inaad waxaa daawato adigoonan waxna ka qaban karin, laakiin dhinaca kale laga yaabo inay adiga stress kugu abuuraan ama muxuu ahay caafimaadkaaga ay wax u geystaan. markaasoo kale marka ay saa tahay waxa kuu dhaanta inta aad dhacdooyinka maalinlaha iyo hebel wuxuu yidhi iyo heblaaya waxay tiri aad dhegaysanayso, haddaad Falastiin danaynayso inaad tusaale ahaan kitaab ka sheekeynaya taariikhda Falastiin oo kale inaad soo qaadato. iminka buuggan horteeda yaalay waa 200 page ilaa waxaa laga yaabaa inuu gaadhayo 500 page. wuxuu ka sheekeynayaa taariikhda Falastiin, goorta muxuu ahaye markii ugu horreysay ee dhulkan la dego iyo ugu horreeyay yuhuudda iyo falastiiniyiintu maxay isku hayaan, qaza maxaa mar walba loo weeraraa. kitaabkaas laga yaabaa oo 500 page inuu kaaga filaado inta aad dhegaysanayso war maalinla ah oo kuu sheegaya hebel baa dhintay iyo hebel ayaa la dhaawacay, adiguna dhinaca kale aanad waxba ka qaban karin. ugu dambeyntii ardayahow, waxaa muhiima inaad fahanto aaladahan technology-ga aynu isticmaalayno waxaa loogu talagalay inay qofka bini'aadanka u khidmeeyaan, inay u adeegaan wixii aad u baahnayd baaritaan iyo wixii aad u baahnayd inaad samayso ama cilmi iyo aqoon ahaa inaad kala soo baxdo. laakiin wax laga xumaadaa in badan oo maanta dhallinyaradeenna ka mid ah aaladdu ama waxaanay isticmaalayaan iyaguma isticmaalaan, laakiin waxyaabahan technology-ga isaga laftiisa technology-gii ayaa qofkii controlaya. waxaa laga yaabaa adoo maanta ku talagashan inaad 10 daqiiqo yar tiraahdo yara eeg waxyaabaha ka socda hadday noqoto Facebookga ama TikTokga ama meelahaas, inaad is aragto adigoo saacado badan ku bixiyay. marka waqtigaagu waa waqti aad u muhiim ah, ilaahayna kugu xisaabinaya. waxaa lagama maarmaana technology-ga qaabka aad u isticmaalayso inaad dib u eegto. ugu dambeyn, mawduucan maanta aynu ka hadlayno yaan la qalad fahmin, ha u qaadan in lagu leeyahay adduunyada waa inaad ka dhagalacaato, laakiin kitaabkan aynu akhriyayna wuxuu ku saabsan yahay gaar u yahay ardayda.
ardayhow inta aad waxbarashada ku jirto waxaa muhiima adduunyada kale waxa ka socda inaad iska xidho waxba kuma dhaafayaan hataa haddii aad bila ka maqnaato ama aad sanada ka maqnaato wax weyn oo isbedelaya ma jiraan ugu dambeyn waxaan ku siinayaa 2 talo oo muhiima talada koobaad hataa haddaad isticmaalayso kuley lagama maarmayo in la isticmaalo social media laakiin waxaan kugula talinayaa inay noqoto xilli hawlihii ku yaalay oo dhan aad soo dhamaysatay qodobka labaad ee talada muhiimka kitaabkan ku jirta adiguna kugula talinayay waxa weeyaan channelada inaad iska blogarayso channelada wararka iyo dhacdooyinka caalamka barankiyada waxyaabaha qosqosol kale waxaas oo dhan ka sheekeynaya inta aad waxbarashada ku jirto waqtigaagu aad iyo aad muhiim yahay waa inaad iska ilaaliso waxa maanta aan la yaabaa oo aad u qosol badan arday imika ku jira dugsiga sare ama imika jaamacadda dhiganaya oo ka sheekeynaya madaxweynaha wuxuu yiri xisbi hebel baa maanta hadlay iyo muxuu doorashada hebel baa helaya iyo xataa hadayba dhacdo oo sida aad u sheegaysid ay noqoto maaha wax adiga nafci kugu soo celinaya laakiin waa wax adiga waqtigaagii qaadanaya marka intaad isku mashquulin lahayd odayaasha waqtigooga soo dhamaystay ee shaqaysanaya waxa muhiim ah inaad adigu aad waxbarashadaada aad ku mashquusho kitaabkan maanta aynu akhriyayna tusaalayaal badan buu bixinaya rag badan oo aqoon-yahan ah oo wadankooga ay dhacdooyin waaweyn ka socdeen laakiin iyagu iska mashquuliyay oo waxbarashadooda ku mashquulay waxa kamid ah ilaa 4 tusaale ilaa 5 buu soo qaadanaya waxa kamid ah Cabdiwahaab al-Masiri ninka la yiraahdo qofkaan garaneyn oo baari kara wuxuu ahaa caalim weyn oo Masriya ninkaas Mareykanku wax ku baran jiray maalimihii ugu badnayd ee waxbarashadiisa waxay ku soo hagaagtay isagoo wadankiisa dagaal weyn ka socdo dagaaladii 760kii iyo 270kii mise 370kii 270kii dhexmaray ee Masar iyo Yahuuda wuxuu marka isaga iska sheekeynaya Cabdiwahaab al-Masiri wuxuu xaaskaygu sida masaarida kale la mid ahayd maalin walba waxa ku mashquulsanayd la socoshada dhacdooyinka waaweyn aniguna wuxuu yiri ana wadankayga dagaal ka socdo xataa la qabsaday meelaha qaarkood waan iska joojiyay inaan la socdo kadibna waxaan bilaabay inaan buugaygii PhD aan qoro maanta Cabdiwahaab al-Masiri oo dhintay Allah u naxariisto laakiin waqtiga uu inasiiyay wuxuu inooga tagay inuu inoo qoray buug weyn oo encyclopedia mawsuuca weyn oo ka sheekeynaya taariikhda Yahuuda iyo kutub fara badan ayuu ku soo biiriyay maktabada islaamka marka maalinka hadii wuxuu yiri waqtigayga aan ku khasaarin lahaa daawashada wararka maanta waxba idin ma soo gaarsiin waxaan filayaa fariinteedii waad fahanteen aadna waa mahadsantiin